السلام عليكم ولا ليال وفاضل قاسم دايب وسود هذا وهذا الكان وعاوة الروينا نليه شو إن هداد مقليسان عدكي جو كلير وياه بلي شيء مي مقليسان waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo abaaraha dalka ka jiraan iyo dhibaatada dadka haysato runtii waa ayaan daro maalin aad iyo aad u xanuun badan waaye in haddana mar kaleeto abaaro kale masiibo kale inayna haysato
2011 waan xasuusanaa dhibkii aan kala kulannay iyo intii qof oo ku dhimatay haddana marxalad sidii oo kaleeto ayaa nagu soo wajahan waxaa noo muuqata in 6.2 milyan oo dadkeena ah inay cunto la'aan ay haysato waxaana lagu leeyahay 2.9 milyan waaba dad waxay cunaan aan haysanin oo dhibaato aan la filanaynin runtii oo aad looga danqado ay dareemayaan ilmaheena oo aan dhalnay waaridka aan u nahnay Soomaalida 1 milyan ku dhow cunto la'aan hayso macaluul ayay u dhimanayaan boqolkiiba 60 xoolaheena waa dhamaadeen dad xoolahooda lagu yaqaanay ku nool ayaan ahayn xoolihii waa dhamaanayaan boqolkiiba 60 waa dhamaadeen biyo la'aanna waa jirtaa abaarahan ka hor jaaga biyaha oo 20 litir ah 500 oo shilin ayaa lagu gadan jiray haddana isla jaagaas biyaha oo 20 litir ay ku jirto waxaa lagu qasban yahay $15 in lagu gato يعني 16 جور laba laab camal ayay lacagta ku kordhiyeen meeshii laga rabo dadkeena inaan wax u qabanno oo maal qabeen haddaan nahnay ama hataa aan beec mushara aan leenahay meeshii laga rabo inaan u naxariisano noloshii aan ku adkaynay lacagtina waan ku kordhinay dalkeena waad ogtiina dadkeena sabool waay boqolkiiba waxaa lagu leeyahay 73 maalintii waxay ku nool yihiin $2 iyo ka yar jaa dhibaataaban haysataba abaarahan ka hor dhibkaas asigoon haystay haddii cuntadii biyihii cirkaas lagu shareero maxaad is leedahay وأن كلا كل مدونا ونقول عدونا محقا تذكرني أي قصص ودمانا باهدي ودمانا يان حولهني أي دمادين إن العقد قوات كإنه مجرم ويني إن حتى في سبيل الله أو حقورنا أنسينه hooyo macaluul u dhimatay ilmaheedu ku hor dhimanayaan ku hor taagan dukaankaada inta soo istaagtay sidee uga qaaday $15 20 litir oo biyo ah ma u qoori weys inaad siisid ilaahan kugu dhaariyay ma u qoori weys inaad siisid ma dukaankaada hortiisa inay ku dhimataa rabtaa cunugaas ooynayo yaa u maqan oo adigaan ahayn anigu waxaan la hadlayaa maal qabeentaan la hadlayaa lacagta haysto cashuurta aan laga qaadan 26 sano soo socotay meeshaas ku taajiray maantay marxalad waxaa lagu jiraa dadkiina iyo dalkiina waxaad u qaban kartaan ajnabi nooma maqno qof noo maqan male aan anaga ahayn yay hooyadaa sugaysaa ilmahaas yay sugayaan
biyahaas nadiifka ah waa muhiim la'aantooda ilmaheena markay bilaabaan biyo wasakh inay cabaan shuban ayaa ku dhaca daacuun ayaa meesha ka qarxnay ayikoo cunto aan haysanin biyo nadiif aan haysanin daacuun hadduu ku dhaco waa dhammaanaya runtii ma awoodnaa 1 milyan oo ilmaheena horteena inay ku dhamaadaan ma wax kala noo harsan dhib kasta waa soo marnay wax kasta waa soo marnay ilmaheeni ma wax u qabsan la'aana ilmaheeni ma wax u qabsan la'aana qofkaas beec mushtariga dukaanka leh waan ogahay waxaa laga yaabaa inaad ka fikiraysid faa'iidada ku soo galayso laakiin hooyo Soomaali 20 litir oo biyo ah $15 aad ka qaadid kuma taajiraysid meelna kuma gaarisid dadka xawaalada leh shalay waxaan arkay $300,000 oo US dollar inaad iska soo gurbiseen oo keenteen intaas ka badan waad awoodaan milyuumaad ayaad awoodaan mana tusin kartaan idinkoo jeebabkiina si fiican gacanta inta u geliseen $300,000 iska dhaafay 3 milyan aad iska keentaan waad awoodaan walaalahayga diasporada joogo waxaan rabaa inaan nii mahad celiyo walaalahayga dalka ku jirana waxaan rabaa inaan nii mahad celiyo sida aad iskugu wada imaateen oo aad ugu gurmateen dadkeena waxaa runta u muujiseen adduunka inaad dad kale waxba aad ka sugaynin oo annaka aan isku filnaasha loo baahayay waxaa laga yaabaa beeshaas caalamka inay lacag ku soo urursadaan Soomaaliya wax u qabanayna lacagta Soomaali ma arkayso inta baxaan ilmihii walaalahooda ay dhaleen ilma adeerkooda uu dhalay ehelkooda uu dhalay intii shaqo soo siiyana xamar lagu keenay Soomaaliya lagu keenay waxa lagu leeyahay abaare wax ka qabanayaan meelay wax ka bilaabaan iyo wax meelay ka qabtaan ma yaqaanaan runtii waxaan aad ugu faraxsanahay oo dhiirigeliyay 70% dadka dhulka jooga shaqada kala wada u gurmanayo hooyada Soomaalida u gurmanayo aabahaas Soomaaliga awowga Soomaaliga ayeeyada Soomaaliga ilmaha yarka Soomaaliga inay 70% Soomaaliya yihiin yani dadkan beesha caalamka dhahayso shaqan haynaa shaqada waxa uu haayo gacmahooda iyo lugahooda waa Soomaali maantadan wax ay noo qaban karaan ma leh annaga le waxa soo qaban karnaa ma awoodna saan ka xawaaro badan intaan iskugu imaano aan u bilaawno lacag ilmaheena inaan u gurubsano aan wax ugu qabanno magaca Soomaalida iyo magaca dalkeena inta sharafta looga ciyaari karo sumcadda looga ciyaari karo waa looga ciyaaray maanta laakiin waxaan awoodnaa sumcaddaas inaan soo ceshino alxamdulillah dawlad cusub ay imaatay xukuumad cusub ay imaatay ay dadkuna ku faraxsan yihiin waan ka rajaynaynaa in ay mas'uuliyadda qaadi doonaan beesha caalamka haday lacag soo aruuriso lacagtaas waa in loo keenaa dawladda haddii gurmad la suubinayo waa coordinationka ama structureka ama meesha laga duul tagayaba dawladda waa inay lahaataa ajnabi dambe iyo dalkaas la garab cararino oo dhiin dadaan wax u qabanaya hadda waxaan aragnaa hay'ado kala duwan oo mid walbaba
وسوق كتجي العجان صومالي وقربنا رباطتنا وقبضوا حبنا وما خبنا يعني دولتنا وحان ورجينا يا إني حزلنوني أنتو كفرستان يتدك مسؤولية دولي من لهاين إن لو قصيو أيام كل طنين لهاي وضياشنا دخنك تدك إسقرب أرداي أو معلنك استفيل الصومالي الباك وقراعي رئيس الوزارة قرطو وقلاي بالأسحانك مرحلة وحال وجرى لو باهي إني مسكحة ضد أنت تجيان أي كشغيسيان ها إنه ضمبيس قبيلك أدودد إلى أذيرك أدودد وقفك ودتد به والحوغاير دب ودقو سي وقتي ومدحوينها يرئيس الوزراء وكفرستو ومرحلة دان دباطة أن كجرنو runtii weligeeda abaarahan oo kale lama arkin haddii 2 bilood gudaheeda shaqo laga qaban waayana intaasoo milyan inay ku dhimataan uga baqayaan odaygaas oday dhaqmeedka waxaan kugula talinayaa aan kaa tuugaya bilisxaanak u dhaaf waqti sii madaxweynahaas waqti sii ra'iisul wasaaraha ay dadku keensadaan shaqada lagu qabto anigu runtii waxaan jeclaan lahay si toos ah inay mas'uuliyadaas inta u qaataan ay soo xulaan wasiiradooda ay rabi lahaayeen inay shaqada u qabtaan looma baahno wasiirada tirada ka batay lacag looma hayo يعني waxaan 4.5 ama qabiilka waxa lagu kala qaybsanayo sanad kadib ha lagu kala qaybsado laakiin hadda waxa loo baahan yahay dad ordi kara oo shaqada qaban kara bilisxaanak u ogolaada inay intay fariistaan ay waxay rabaan dadkay rabaan ay soo xushaan dalka marxalad xun oo ku jira maalin kasto oo dib aan uga dhacno inaan dawlad weyno ama dadkii laga rabo shaqadaas inay qabtaan ay dib ay uga dhacaan 150 ayaa maalin kasto dhimata yaa mas'uuliyadaas qaadaya odaygaas oday dhaqmeedka ama odayga qabiilka ka socda ma mas'uuliyadaas qaadaya uma malaynayo inuu qaadayo bari ka maalin mas'uuliyadaas waxaa la kor saari doonaa laguna qabsan doonaa madaxweynaha waxaana lagu qabsan doonaa ra'iisul wasaaraha oo la dhihi doonaa maxaa shaqadan wax looga qaban waayo maxaa dadku wax loogu qaban waayo runtii waxa waaye waa national disaster ay dhaheen anigu emergency aan ka dhigi lahay marka lagu leeyahay abaaruhu stageyo maraa waxaa jiro wax ay dhahaan 5-phased criteria yani 5 marxaladood waa in la soo maraa markii intaas dhan la arko kadib ayaa waxa la dhihi karaa runtii meeshu marxaladu meel xun ay maraysaa Soomaaliya maanta hadii la fiiriyo stage-kii afraad waa dhaaftay waxay faraha lugaha hadda la galaysaa stage-kii shanaad stage-kii shanaadna markii la galo lugaha waa markii 10,000 oo qofoodba maalintii 2 qof ay ka dhimato waa meel oo aan laga soo noqon karin horey dadkeenu u dhamaadeen marxabada lagu dilo marmiina lagu qarxiyo maray ba maartay dibka si loo geysto ay koobadahaas doon inta fuulo ku quusay ku dhamaadeen haddana baahi ay u dhimanayaan baahi ay u dhimanayaan hooyooyinka ilmaha inta dhabarka ku soo sida soo qaada cunuga sakraade rugta caafimaadka inta keena la isku daya ilmaha in la badbaadiyo wixii lagu badbaadin lahaa taa ma hayno wixii lagu badbaadin lahaa ma hayno
half of Somali ma dhimanayna waxaa lagu leeyahay 6.2 milyan haddaan 12 milyan aan nahnay ama ka badan dadkeena half cunto la'aan hayso waxay cunaan ma haystaan biyana ma haystaan biyo ma haystaan ilmaheena wax kasta oo u dulqaadan karnaa waana loo soo dulqaatay dhib kastana waa la soo maray laakiin cunug dambo Soomaaliya bahay inuu u dhinto macluul inuu u dhinto biyo la'aan inuu u dhinto xaraam waxaas diinna ma ogola dhaqankeena waxaas ma ogola dadkeenaan maalqabeenta dukaamo kale ma awoodaa in dadkaas kugu imaanayo biyo la'aanta haysato inaad biisiisid maanta waxaa baxsatid sadaqada maanta aad baxsatid beri adaa ku fakanaysid hooyo $15 aad uga qaaday inaad siisid 20 litir oo biyo xaraan waaye cunugii aad ku quudisad guriga aad ku dhisatid shaarka intaad ku gadatid aad ku tukamaagtid salaada taa lagama aqbalayo ilaahay ka baq meelin lacag oolin lacag ha ka raadin bakti ha cunaysaa cunug yar biyaha aad u jiito daraadiisa inuu biyo wasaq intuu u cabo daacuun ku dhaca adaa mas-uulka mas-uul adaa ka kan xabadda intuu u qaato madaxa uga dhufanaya iyo adiga waxaad isdhaantaan ma leh kaas xabadda ku dhufanaya waaba u fududay si degdeg ooba nafta uga qaaday adiga ka waran macluusha aad ku dilaysid oo sakraadka aad ku dilaysid oo rafaadka aad ku dilaysid asiga cunugaas kaligiisa ma aad dilinaya hooyadiisana waa la dishi sa ayadaa kor taaganoo waxbana aan cunaynin waxbana aan cabaynin inta cunugeeda sakaraaday ayadana la sakaraadayso walaalayaalow $300,000 agtiina waxba kama aan 3 milyan awoodaanay meel kasta aad joogtaan islii jooga ilaahu jubba jooga South Africa jooga meel kasta jooga nin maal qabeena business la hadaa tahay maanta dadkaada aday ku sugayaan isxilqaam mas-uul issaar wuxuu qabo wax u qabo haddii bishaan roob la waayo marxalad aan laga soo noqon doonin ayaa la gelayaa mid aad ka yaabi doontaan masiibo weligiina aad arkin ayaa arki doontaan hadduu ilaahay noo naxariisan waayo oo roob aan heli weyno roob haddii la heli waayo waa ka kaca dalalka deriskeena ayakuna dhibaatada waa nala qaybsanayaan laakiin waxay ku roon yihiin cuntaa stoorka ugu jirta dowladda u shaqaynaysa biyaha iyo cuntada stoor oo buuxisay oo maanta oo kaleeto marxaladan oo kale markay la kulmaan u soo saarta annaka dowlad waxaan lahayn kumi kasto ay gacanta ku dhigaan iskugu diyaarinaya doorasho inay u isticmaalaan waxaa lagu leeyahay 14 milyan
إلا 20 مليون أو US دولار أيا حلكي حد الدواي وقبح دولة دور حد ما يعني ساتتك إن لوجو قبن كرو إنتاس لوجو قبن كري وحبضنا لوجو قبن كري إن الرب سجنا كلمة أنا فرصمة عالمية دونك بس كبيرها فشة إليهين وين كفكرنا مستقبل كوين أنسو ديارنا لابد كوني كوي تمنكي انتاسو مليون أياكو دنتين سنة كان اسم المرحلة دي أنكو جرنا ما برنا مياه أنا كولينا 10 كنولو قراية ما برنا مياه 10 كلا ما برتو مياه قبل لابطو مانتي وإنان isu diyaarinaa waxaan iyo wax ka mid ah la mid ah waa inaan awoodnaa waxa ay dhahaan forecasting inaan subinno lala socon karo meelaha abaarta ay ka soo socoto haddii roob la waayo ama calaamadaha jiro lagu garto calaamadahaas inaan aqrin karno waan ogaan karno waan isu diyaarin karno waa laga yaabaa hadda anaka inaanan lacag haysanin laakiin haddaan leenahay waana yeelan doonaa insha allah saan aaminsanahay dowlad adag lacagtan ajnabiga dhan soo aruurinayo meel inta iskugu keento og meelaha loo kala dirayo meesha baahida ka jirto meesha looga baahan yahay lacagtaas in loo diro iyo sidii loo diri lahaay waxaan u baahnahay si degdeg ah structure saas oo kale inaan yeelano waxaan nasiib ku leenahay the national development plan wax la yiraahdaan leenahay baahida dalka uu leeyahay xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga amniga xag kastaba qorshaan u leenahay qorshahaas waa in loo isticmaalaa lacagtaas in la geliyo ma ahan lee hadda bilaha ugu horeeyo inaan intaan orodno aan rabno dadaan wax u qabanaynaa waa inaan u shaqaynaa inaan rabno inaan waxaan ka hortagno 3 sano ilaa 4 sano waxaa lagu leeyahay humanitarian response waa wax oo hadda gaaban oo la rabo isla markiiba ka hortag in lagu suubiyo Soomaali 26 sano ayaa waxaas laga qaban jiray maantadan wax farta lagu qabto ama aad gacanta saari kartid lama hayo sababtoo lacagtaas waxay la mid tahay hal bacaad lagu dhisay caano oo maartay bacaadka lagu shubay la mid tahay waa inaan diidnaa in mar dambe noo lagu sheekeeyo in wax si degdeg aan ugu qabanno si kastaba ha ahaatee ayuu si degdeg loogu qabanayo lacagtaasna waa in loo isticmaalaa isbitaalada inaan ku dhisno inaan iskoolada ku dhisno ceelasha in lagu dhiso oo biyo nadiif ah ay helaan musqulo ay isticmaali karaan waa in laga dhisaa wax kasta aan qabanayno yacni meel fog waa inaan ka aragnaa aan isu diyaarnaa shaqo culus oo dheer inaan qabanayno marka wasaaraddeena qorsheynta qorshe ay soo dejisay oo dalka la rabo in wax loogu qabto wax cusub anaka hadda looma baahno maalin kasta wax cusub maa la keenaya hadda waxaa lagu leeyahay shiraa waxa ka soo socdaa london la tagayaa london markii la fadhiisto haddana waxaa la keenayaa qorshe kale oo cusub meeqa qorsho dalkaas meeqa qorsho maalin kasta wax la keenay wax laga haayo ma leh qofkaas jidka taagan hooyadaas baradhada gadaysa ama yaanyada gadayso qorshahaas cusub oo maalin kasta la wado wuxuu u taraay ma leh kan dowladda uu leeyahay oo baahida dowladda iyo baahida Soomaalida loogu suubiyay kaas ayaa annakana anfacayay wax kasta aan hayno aan ku hubinno qorshahaas inaan ku taageerno maxaa hadda suubin karnaa maxaa la suubin karaa
حاجة واحد لقى بالله بكرة حتى ارتان أنا هذا لين حاجة واحد بالله بكرنا واحد لقى بالله بكرة يا ده بشيل أو 6 مليون أو يو اس دولار وقد ضايقه dadkiisa kaa dukaanka leh islaantaas dukaanka leh inay biyaha nadiifka ah cuntada inay fi sabiilillah meelaha abaarta ka jirto ay u geyn karaan maanta ajnabi uma baahnin annaka isku filan dhaqaalana waa haysanaa aqoontuna waa leenahay dadkina waa leenahay annaka isku filnaashadana waa inaan muujinaa inaan muujino anagay faa'iido noogu jirtaa mar dambana inaanan lagu suuq tagino aan mashruucna laga suubsanin mashruucan waxba noo taraynin waa inaan ka foojignaana lacag kastoo lasoo gurbiyo hay'ad walba hadda waxay ku leedahay waxaan u baahannahay 2.5 milyan oo US dollar waa mid yaro hataa aan wax qabadkeed hataa aan saas u fiicnin lacagta haddii la siiyo xagee la geenaya inta qaadaan ayay dad kaleeto shaqo ku gelinayaan qof Soomaali hataa laguma shaqaaleynayo qof cunugeena yar oo dhalinyarada ah oo tahriibay laguma shaqaaleynayo dad kaleeto islaan oo pension ah oo waxaan ku leeyahay soo shaqeynayso meesha laga rabo inay intaas ka fariisato shaaheed iska cabto iska nasato ayaa lagu keenaa lagu leeyahay ayadaa shaqaale lagaaga dhigaya laakiin lacagtan haddii dowladdeena ay gacanta ku dhigto wax badan ayaa dalka loogu qaban karaa sababtoo baahida waa la ogyahay sida loogu gurman lahayna waa naqaanaa marka yaa dad kale la eedin eedda annakeena saaran tahay dadka oo cuntada biyaha maciishada cirka ku shareeray waa Soomaali mid dukaan leh ama islaan dukaan leh ayaa maciishada cirka ku shareertay ayadoo asalba qaati billah la taagnaayo la liiqliiqayo beerka dhulka lagu hayo baahi lagu seexanayo habeen kasta waxaan ku dhahay 73 waxay ku nool yihiin $2 ama ka yar maalintii ka war adigu haddaad tagtid jaziira ama maqaayadahan waaweyn oo xamar ku yaal aad tagtid shaaha kaliyaaba $5 qoys weyn soo $2 ugu noolaanaya maciishada cirkaa lagu sii shareeraya shaqo male dadka ma shaqaysan karaan xoolaan lahaan jirnay xoolahaan raaci jirnay caanaha laga heli jiray waa lagu noolaan jiray 60% xoolihiina waa dhammaadeen maxaa yaala marka beerna maba falan karno biyo maba haysanaba meel kasta aad fiirsid meel kasta aad u jeesatid masiibaa kaasoo kusoo fiirinayso ku hortaada runtina waa itixaan aad iyo aad u weyn waaye waana na soo haysta intaanu sano na soo haysta laakiin tii ugu xumayd maanta aan hortaaganaa maantayna hortaagan dalalka deriskeena waa horumareen ilmahooda waxbarashay haystaan habeen kasta cuntay cunaan ammaanay ku nool yihiin ku jiifaan annakana ilmaheena daacuun u dhimanayaan xagee ku aragtay dal waqtigan xaadirka lagu nool yahay 2017 aan ku jirnaa oo daacun loo dhimanayo xagee ku aragtay adduunka xagee ku aragtay dal ay 7 milyan oo caruur ah iskool la'aan ay haysato xagee ku aragtay adduunka waana laga dhaqaaqay adduunku waa orday dadka deriskeena ahaan waana ordeen
annagana maanta qof noo maqan male annagaa isu maqan annaga ayaa isu maqan dadka caafimaadka bartay bilisxaaniga imaada haddaad dibadda joogtid bannaanka aad jirtid haddaad soomaali ku dhex jirtid oo private aad ka shaqaynaysid bilisxaanag soo baxa ilmahaas dhammaanayo sidaan ku daaweyn lahayn aan wax ugu qaban lahayn aan ka fikirno qabiil gees iska dhiga qabiil waa lasoo dhaafay jaahilnimo qabiil meel iska dhiga qabiil wax ka weyn ayaa maanta haysta aan isu wada imaano inta aan soo gurmanayno oo isu imaanayno kuwaan beec mushtarada lacagta ku haya maciishada soo dejiya waxaa lagu jiraa waqti oo marxalad aad u xunaa lagu jiraa lacagtaada soo yareey lacagta aad bariiska ku gadaysid baasada aad ku gadaysid biyaha aad ku gadaysid bilisxaanag soo yareey haddaad yareenin ma gadan karaan hadday gadan waayaanna baahiya u dhimanayaan adna haddii waxaad lagaa gadan waayo meeshay ku qurmayaan intay kaa qurmi lahaayeen sadaqayso bari ka maalin iilkaas dhulka marka lagu dhigo at least waxaa kaa horeeya aad u shaqaysatay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii soo abaabulay caawi walaal dhalinyarada soomaalida oo soo abaabuleen qorshahan la dhaho caawi walaal oo lacagta gurbinayay oo dadkii u gurmanayay oo meesha daacunka ka dilaacay daawada geynayay biyaha nadiifka geynayay walaalayaal aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahay hani abaal mariyo abaalka aad u gasheen dalkeena iyo dadkeena kolay maalin aan maalintaan ahayn ayaa nilaga abaal marin doona insha allah dadkan Somali faces la yiraahdo oo markasto dhibaatada markay jirto ayakana u gurmado oo GoFundMe-ga ama waxa suubiya ayakana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo dhaho saas ku socda badbaadada dalka gees kaalin weyn ka qaadateen kuwa kaloo badanna waa jiraan oo aan meeshaan lagu soo tirin karin ayakana waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin caawa anigu runtii waxaan meeshaan usoo fadhiistay saacad ka hor waraysigan waxaan siiyey Channel 4 TV-ga waxay iga waraysanayeen in beesha caalamka ay leedahay annagaa gurmanayno annagaa Soomaali wax u tarayno annagaa wax u qabanayno runtii waxaan dhahay Soomaaliya waagii lagu shaqo tagi jiray ama la dhihi jiray waxaa loo qabanayaa ama waa loo gurmanayaa waqtigu waa soo dhamaanayaa dad ismaamulayo iskaashanayo ayaa hadda jira oo dalkana jooga yacni ereyga luqadda la isticmaalayo in la bedelo in la casriha laga dhigo haddii waagii hore waxaas la dhihi jiray hadda sheekada waa isbedeshay dowlad waxaan u maleynayaa meesha nafle inay joogto ama ay imaan doonto beesha caalamka dadkaas inay soo garab istaagto ma ogyihiin ma hor ordi karaan waagaas waa soo dhammaaday baahiduna waxaa sheegayso dowladdaas dadkeeda baahiday qabto dowladdaasa og marka taas ayuu waraysigayga u ahay kadibna waxaan jeclaystay inaan runtii aan ka hadlo sida aan dareemayo wax maanta aniga awood weyn aan leeyahay ma leh dad badanna saas oo kaleeto dareemayaan
hal qof keligiisa wax ma qaban kara hadaa kulli la isu wada imaado wax waa la qaban karaa anigu qof waxaan ahay caafimaadka ku takhasus dad kale oo badan oo anoo kale ina way jiraan oo maanta meeshii joogaan baa hadday meeshaas tagaan ay dadku wax u qaban karaan waxaan u baahannahay wax la yiraahdo surge capacity dad waxaa jiro maaragtay reserve la dhaho markii ciidanka waxaa la waa fadhiyaayo haddii beri loo maahdo ayaa la activate garaynaya dagaal u galaya ciidan anagu uma baahnin waxaan u baahannahay dad wax bartay oo takhaadiira ah ya kalkaalisooyinka sare oo reserve ah oo beri ka maalin marxaladan oo kaleeto markaan aan leenahay ama aan la kulanno la activate garayn karaa ama lasoo wici karaa oo meeshii joogaan adduunka kasoo ordi karaa imaan karaa database saas oo kaleeto waa inaan ka shaqaynaa oo dadkeenna aan u qaylo dhaamin karna ay noo imaan karaan waa isku filanna annagaa isku filan dad kale uma baahnin markii dadka kale ay ku arkaanna adigu inaad meesha iska qaado wax qabsanaysid waa ku soo garab istaagayaan laakiin maanta marxaladda waxaa la taagan yahay adduunka soomaaliya magaceeda marka la soo qaado waxaa leeyahay wixii leeyahay haddana maa socdaan qof kuu soo gurmanaya hataa ma leh haddii south sudan syria iraaq dalalkan dhan oo la isgarab dhigo adigu qofku fiirinayo ma leh sababtoo 26 sano ugu soo dambeysay markasta magacaada waa la soo hayay dadkii deeqa bixin jireen waxaa lagu leeyahay waa caajiseen waa ka caajiseen annakaan u caajiseenin dadkeena annakaa weligooda ka caajisi doonine annakaa u maqan qof kaloo noo maqan malay waana ku mahadsantiin sida sharafta leh waad ii dhegaysateen waxaana aan igu dhiirigelinayaa kulligiin inaad dadku usoo gurmataan sida ugu degdegta badan leh waan naqaanaa sida ayuuta loo ciyaaro oo dahab loogu gato set dahab loogu gato waan naqaanaa ayuuto waa in la galaayo dalka loogu gurmanaya la diraayo waa awoodnaa taas sida lacag loogu aruuriyo nin siyaasi oo isku qabiil aan ana waa naqaanaa aan intaan isu imaano qabiilkeena ilmaheenna iyo dadkeena waaye aan wax u aruurino aan u dirno fanaaniintana waxaan kula talinayaa inay inta isu wada imaadaan hees inta qaadaan kolay albumkooda waa la gadaaye wixii laga soo saaro wax dadka ugu qabtaan ama hataa dhiirigelin ha u ahaadaan dadka kaleeto ugu dambaystina shacabka hadduu isu imaado soomaalida ay isugu imaato ay soo gurmato dowlad la-aanteeda wax la qabanayo wax soconayo male dowladdii la rabana inay inta fadhiisato madaxweynaha intuu fadhiisto ra-iisul wasaaraha uu fadhiisto ayagoo maskaxdooda ay degan tahayna qorshe inta ku suubiyaan ay dad ku soo xuli lahaayeenna waaba laga hortaagaya maalin kasta villa soomaaliya oday beel ka socda ama qabiil ka socda ama qof cv la ordaayo ama xildhibaan ama wax le meesha fadhiya maalin kastoo meeshaas la fadhiyana waxaa imaan doonto ilmo badan meeshaas inay ku dhintaan waqti looma hayo hala siiyo spacekii ay wax ku qabsan lahaayeen ay go-aan ku gaari lahaayeen ay dad ku keeni lahaayeen oo lagu ordi lahay anigu runtii waxaan qabaa haddaba inay dad soo xushaan dad badan looma baahno hana ku soo xushaan aqoon mid oo caafimaadka ku fiican mid waxbarashada ku fiican mid xagga biyaha ku fiican
mid amniga ku fiican kadib hala ordo waxaa laga qabto dalka waxa ka jiro yani an emergency cabinet waxaa loo baahan yahay emergency cabinet wax la yiraahdo sanad hadduu rabo ha shaqeeyo marxaladan markii laga baxo kadib hala soo noqdo oo hala dhaho qabiil waxaa lagu qoondeeyo beel hebel inta hala siiyo halkaa hala siiyo sanad kadib markii dhibaatadan la dhaafo bal waxaa laga hadla laakiin hadda munaasib ma ahan in qabiil laga hadlo in la dhaqaaqi waayo maalin kasta la yiraahdo aniga qabiilkayga waxaan lama siin kaas lama siin inta lama siin oo la buuqa la qayliyo dadna waa dhimanayaan hooyooyinaa dhimanaya ilmaha dhimanaya war naga dhaafa qabiilka waxay keensanayaan ayaga ha keensadaan sababtoo daday nololay badbaadinayaan dalay badbaadinayaan mar ay cadowgaa lala dagaalamay abaarahaas laga soo baxay daacuunkaas la dhameeyey ilmaheena ay roon yihiin beero la haysto biyo nadiif la haysto kadib soo diro odaygaada dhaqmeedka ha loo dagaalamo maxaan ku dhahaa jago oo qabiil ku saabsan laakiin hadda emergency situation lagu jiraa emergency cabinet loo baahan yahay immediately shaqada bilaabayo marka aniga hadda af ingiriisan ku bedelanayaa maadaama dad kaleeto ajnabina ay meeshaan ay ku jiraan laakiin waxaan rabaa kulligiin waa dareensantihiin kolley marxaladda lagu jiro waana la socdaa waxyaalaha aad soo qoraysaan fiidiyoyaasha lasoo saaraayo horta soomaali haddaan nahnay annaka ilaahay wuxuu nagu barakeeyey inaan markaan isu baahannahay aan dadka kale iska soo dhaweysano inaan isjeclaano aan isku soo dhawaano haddii la isu baahdo waa la yaqaanaa si laiskugu imaado marxaladdii laiskugu baahnaayo hadda lagu jiraa waa maanta inaad imaatid oo waxaad ka qabatid ugu yaraan $20 hataa haddaa bixisid aad u deeqdid wax badan ayay qaban kartaa waa lacagtii Starbucks aad ku fariisan lahayd oo fadhi ku dir aad ku suubi lahayd oo aad weerar iyo dad ku qaadi lahayd maalintaas bay haddaad ka qadid Starbucks fadhi ku dirarka xogaar aad joojisid lacagtaas wax badan ayaa loogu qaban karaa marka wadaadadeennana waxaan rabi lahay ayakuna inaan u mahad celiyo masaajidada ku jiro oo runtii ayakana shaqo culus haayo lacagta aruurinayo oo gurmadka ayakana qaybtooda ka qaadanayo ayakuna waxaan rabaa aad jazakallah khayr inaan ayakana u mahad celiyo marka walaalayaal aniga intaas le aan rabay inaan sheego oo aan ka hadlo oo runtii 6.2 milyan oo dadkeena inay cunto la'aan hayso ay maaragtay dhibaato hayso oona 2.9 milyanna ayba baahi ay hayso waxay cunaan ma haystaan saadaata aan nii sheegana abaarahan ka hor waxaa biyaha lagu gadanaya 500 oo shilin yani 20 litir oo biyo 500 oo shilin lagu gadan jiray maantadan isla 20 litir oo biyo waxaa lagu gadanayaa $15 $15 lagu gadanaya xagee laga keenaa lacagtaas hadal oo lagu yiri 75% waa dhalinyaro 30 sano ka yar waxaa lagu leeyahay 68 ama 67 shaqo la'aan hayso dadkeena 73 $2 iyo ka yar ayay maalinta ku nool yihiin 20 litir oo biyo xagee laga keenaa $15 lagu gado xagee laga keenaa ma waxaa lagu qasbaa qofka inuu xabad qaato ama soo wax ku keenaa biyaas ku keenaa marka
ma aqaano wax kale aan dhihi karo aan ka ahayn waan awoodnaa inaan marxaladan wax ka qabano marxaladan horta annagaa keennay abaaraha waxaa la yiraahdaa man made disaster annaka gacmaheen aan ku suubino waayo dowlad xumadaa keenayso amni xumaanadana way keenaysaa tan annaka hadda maantana haysato waxaa waaye haddaan dal caadi aan ahaan lahayn oo abaarahan ay nagu dhacaan wax waa ka qabsan lahayn waa ka qaban lahayn dadkii u gurmanayo rabo inay wax qabtaan amnigoodii yaaba qalqal ku jiro oo laga yaabaa in lagu dilo ay ku gurmadahay haddayna baahi ay u dhimanayeen xabad ay u dhimanaa xabadaa dilayso marka qof walboo meeshaas madax ka ahay ka taajiray ka noolaaday calooshu barartay qofkaas walla yowm alqiyaama su-aalaa sugayso madaxditmanada waa kusoo ornaayo waxaan jecelnahay inuu madax aan noqono mas-uuliyad weyn mas-uuliyad culus waayo oo la qaadayo mas-uuliyaddaasna beri ka maalin waa lagugula xisaabtamaya mid lagugula xisaabtami doono waayo marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dadkooda u gurmada inta isu imaado waxa u qabta ilaahay hanaga dhigo dadkan lacagta lehna oo baaci mushtarada businesska faraha kula jirana waxaan kula talin lahay maciishada bilisxaanag dadka ha ku adkeenina في سبيل الله هذا عن تدو سين كرتان أبيها وسين كرتان ومالها أبارها إيه كجرا أد كرتان كبسي في عن به ماشي أتصدق كن ما صدح بقوله كن أتكبح الهد بالسحانك واد أودين إن أصدح مليون يكبضن أو يو إس دولار بحسانك بالسحانك صوبية مركا وكما سنتين وحنا ربع أنت سنة كصاحرة في إنجليزان هادو بدلنايا. Thank you very much for listening to this live broadcast. I was talking about the drought situation inside the country and the fact that we have more than 6.2 million people in need of assistance. Of that, 2.9 million is actually facing severe food insecurity. Basically, they are on the brink of starvation. 60% of our livestock have died. That's quite a huge damage considering the fact that we are a nation that lives off its livestock. We are facing a rise in food prices, but also in water. Prior to this drought, 20 liters of water would have cost around 500 Somali shillings. Now, as a result of the drought, 20 liters of water actually costs $15 US. That is 16 times the cost of what it used to be. Now, this is really inhumane, particularly in a country where 73% live on less than $2 a day. If you live on less than $2 a day, where can you get $15 to buy 20 liters of water? As a result of this increased prices, our mothers cannot afford to buy water, clean water for their children. And for the first time in a long, long time, we are now experiencing an outbreak of cholera in the drought-affected areas. This is quite shocking. In this day and age, in 2017, we have a cholera outbreak that is killing our children. Almost 1 million of our children
will die if we do not respond appropriately to this drought. We can't afford to lose Somali lives. We certainly cannot afford to lose our children. We have lost enough. We have lost millions of Somali children. And we cannot afford to lose many more. It is inhumane for us to do that. And so this live broadcast is to really highlight the severity of what we're dealing with inside the country. We use semantics. People are playing around with semantics. Oh, it's drought. It's not famine. Because apparently for us to declare famine, we must meet there's a 5-phased criteria or stages before a drought can be declared. And apparently we haven't reached the 5th stage. But why should we wait? We have already seen some of the stages required for the 5th stage. We've seen some of those. Why should we wait until all of our people are dead? I think we must declare an emergency situation, because we don't have adequate data to actually tell us the extent of the drought inside the country. We don't have any early warning systems. There are no mechanisms inside the country to tell us whether we actually are facing a drought, whether we are facing a famine or not. Therefore, what we have seen thus far indicates that we are experiencing early stages of famine, and we must not wait for any external entity to tell us when a famine is a famine. We already see alarming signs that point to early stages of a famine. Therefore, we must take drastic measures and emergency measures to make sure that we avert any further disasters or calamity inside the country. Ultimately, and finally, what I want to say is the onus is on Somalis. We don't expect outsiders to come and help us. We are not waiting for the international community to come and help us. I think we've reached a stage whereby we are relying on ourselves. There is self-reliance. We have the means. If these business people who are hiking up the prices, if they donate to the drought-affected areas, if they give water, if they give food, that in itself is really a big deal. If they stop increasing the food, the prices for this period of time, I think they would be doing tremendous favor for the country. If they stopped demanding that a thirsty child or a starving mother pays $15 for 20 liters of water, I think that in itself is a big step. And so I want to emphasize the issue of self-reliance. If our business people, particularly the money transfer people, if they paid $3 million, which they can do, it's peanuts to them. That in itself would be a big benefit to the country and the people. So we need to move away from reliance on people that can't continue to help us. We can only help ourselves.
No one else is going to do that for us. And we must get away from the mindset of humanitarian assistance. You cannot have a humanitarian situation for the past 26 years. Every assistance, every response must now be premised on development, long term. The money that we will get for this emergency, for the drought or for the famine or whatever we are going to declare, it must be used to build schools, it must be used to build hospitals, it must be used to build roads, wells, because this is long term and not really a short-term response. And lastly, I want to say, whatever response we are planning to have, it must come around, it must be coalesced around the National Development Plan. Somalia has a National Development Plan that was developed by the Ministry of Planning. And so we don't need to reinvent the wheel. We don't need to start things all over. We must come around that National Development Plan. We know how much is coming into the country, how much is being spent in which area, so that accountability is there. I think the time has come for this coordinating structure to take the lead, and that is the Somali government. We cannot have the international community running ahead or acting as a government. That time is done with. This is a new era, it's a new dawn. There is a new administration in town. And I hope this is an administration that will be able to take charge of matters, and that will make sure that every penny that is donated to Somalia is spent for Somalia. Not overheads, not on recruiting people who will only be based in Nairobi, flying in just for a few days to stay in the Halane compound, living on DSA. That's not what we need. We need this money to be given to the frontline response, which is comprised, 70% of it is comprised of locals, of nationals. That money should go to them. And those local NGOs must hire Somali youth. This is the time for the youth to be involved in this response. They're already doing it. We have initiatives like the Awi Walal and many other initiatives that have been started by our youth. But we must make sure any NGO that is operating inside the country will only, first and foremost, hire Somalis before they start bringing in internationals or other people. So most of the money should go to the frontline response, which is the Somali local NGOs that are working on the ground, and they must hire our young children, our youth. It is not right for someone who has retired, who is living in New York, to be brought to Mogadishu or brought to Somalia to respond to the drought, when we know they are never going to come out of the Halane compound. What are they going to respond to? What we need to do is to empower the people who are on the ground, and those are our young people, those are the people already responding. And lastly, I want to share with you that I had an interview today with Channel 4, and it was precisely on this, on the fact that the international community tends to use an outdated language. The international community is not in Somalia to save Somalia or Somalis. If that's what they were doing, we would have seen tangible results, concrete hardware, concrete results, which we haven't seen thus far. Yes, they must have done 60% of the work that they came to do, but most of it is still undone. And so I want us to change the semantics of speaking of Somalia and Somalis as if they are victims. They are not. They are actors. Look at how they responded beautifully to the situation inside the country. Somalis are doing it for themselves. They're fundraising, they're on the ground.
And this is what we need to acknowledge, and we must appreciate that. There's no need to duplicate efforts. What we need to do is to make sure that there is a coordinated structure that will work well and that will ensure that money that is fundraised for Somali mothers, children, fathers, and others is not used for overheads, is not used for R&R, is not used for sitting in Halane sipping chai latte, is not used for flying every 4 weeks to Nairobi, that it is used appropriately for the children that need it. And I hope that whichever administration that will now come into effect, I'm cognizant of the fact that we are not able to move fast on forming a cabinet, probably because of the 4.5 clan system. You know, everybody wants to be in government, everybody wants to be given a post, everybody's running around with their CVs. I'm sure Villa Somali the door has been knocked almost every day. And also I'm sure the Prime Minister is dealing with people running around with their CVs. I would like us to really think of what is happening on the ground. We are facing a national disaster. If we don't act now, we will have a catastrophe inside the country. I would advise that the President and the Prime Minister would appoint a cabinet that they think is appropriate to do the job. It doesn't have to be 4.5 compliant. It is an emergency cabinet that will deal with an emergency situation. Drastic times call for drastic measures. Once this lean cabinet is on the ground, once they really start doing what they're supposed to do, and we avert further deaths, and we have stabilized the situation, because we must respond to the drought and we must respond to this insecurity inside the country. A year after this, then you can have a reshuffle, you can get a new cabinet that is compliant with 4.5. But let's not play with clan politics now. We need to save lives, clan aside. So go ahead and name an emergency cabinet that will hit the ground running. You don't need a bloated cabinet, you need a lean one that is focused on health, is focused on education, is focused on really security. This should be their work and they should hit the ground running. And this is what we need today. We needed it yesterday. A year after we have stabilized the situation, then we can select a cabinet based on 4.5 clan formula. But now this is an emergency. If I were in their shoes, I would take drastic measures and do what is needed so that we can hit the ground running. But that is just my suggestion. I'm not the Prime Minister, neither am I the President. I leave it to them. But I would like to request that we give them the space they need, the space and the peace they need to be able to think peacefully and to respond appropriately. So I'd like to thank you very much for listening to me and for being part of this live broadcast. It's always a pleasure reading your comments and responding to some of them. And I'd like to wish you well, and I hope that the next time I am giving a live broadcast, I'd have something positive to say. And now I'll be switching back to Somali. Walaalayaal, waa ku mahadsantihiin inaad runtii aad igala qayb qaadateen oo aad i dhegaysateen. Waxaan rajaynayaa safarka dambe oo aan soo geli doono live-ka in wax fiican aan ka hadli doono oo runtii wax lagu farxa aan ka hadli doono dadkeeni oo aan u gurmadnay waxa aan u qabanay oo aan maartay dhibaatada ay ku jiraan aan ka caawinay. Marka runtii aad ugu
ugu mahadsantihiin waqtiga aad isiiseen oo aad igu dhegaysateen waxaana rabaa inaan nii mahad celiyo waana ku faraxsanahay markasta commentsigiina inaan akhriyo fariimihiinana inaan maaragtay aan helo runtii aad iyo aad ii dhiirigeliyaan waxyaalaha aad ii soo qoraysaan marka walaalayaal ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan dhaho habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh